muxaadarooyin kala duwan ka daawo TBN Tawfiiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiiq Broadcasting Network. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. waxaan ku jirnaa suurat albaqara ka bilaabana aayadda 78aad. waxaa aayadda u dambeysay soo nidhi ilaahay subxaana watacaala soo weli ka hadlaya reer bani israa'iil afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd, ma rumayneysaan kitaabkii qur-aanka qeybna ma ku gaaloobeysaan. markii ay yahuuddii ay u qeybsameen carabta, qabaa-ilka carabta ay u kala qeybsanayeen iyagoo hal diin haysto iyaga oo diintii towraad haysto, waxay sameyn jireen qolaba qodolkeeda dagaalka la soo gelaysa. marka yahuuddi dhinacan ku jirtay dagaalkii markuu dhaco qolaa la jebinaya, qoladii la jebiyey waa la leynaya qaar ka mid ah. iyaga yahuudda ahay inta ku jira qaar ka mid ah, qaarkii yahuudda xagga ku jiray leynayaan oo iyaga la diinta ahaa. marka waa soo qafaalanaya, waa lasoo qabsanaya. markii lasoo qabto oo la keeno halkan oo qoladii kale ay qabsato, markaas waxay bixinayaan lacag ay furanayaan. waxay leeyihin isku diinaan nahay, maadaama lasoo qabsaday waa inaan furanaa. saasay lacag ugu bixinaya. dhinacaas waxay kaga camal falayaan dadkii la diinta ahaa yahuudda la ahaa inay soo furtaan, waa diinta amrayso. dhinacna dhiigoodii daadinayaan oo waa qafaalanayaan. marka kitaabkii dhinacna waa kaga camal falayaan, dhinacna waa ku kufrinayaan. marka ilaah wuxuu yihi markaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd, ma rumayneysaan kitaabkii qeyb ka mid ah qeybna ma ku kufrineysaan. qofka saa yeela jazihiisa muxuu yahay? famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati اdunya wayowma qiyaamati yuraduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun. ilahi saas subxaana watacaala waxaa ilaahay ku ridaa adduunka dulli, aakharana ilaahay cadaabkiisa u gelina subxaana watacaala. saas ayaa jizihiis qofka diintiina qeyb kaga camal fala, qeybna ku kufriya. diinta waxaa la rabaa in kulli la wada qaato. yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa, dadka alla rumaysan oo islaamnimada usoo gala si buuxda usoo gala. diinta waxaa laga rabaa inaad kulli ku camal fasho. maa aataytukum minhu faaatuu minhu ma statactum wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuh, saasuu nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam. halkaasaan ku jirnay reer bani israa'iil. ilah wuxuu lehy subxaana watacaala walaqad xaqiiqi aataynaa waxaan siinay muusa nabi muuse alkitaaba, kitaabkii aan siinay la yaqaanay, waa kitaabkii towraad ahaa. waqafaynaa waxaan jeega raacinay, waxaan ka dabageynay min bacdihi gadaashiisa, nabi muuse gadaashiisa waxaan qadaad raacinay birusuli rusul. wa aataynaa waxaan siinay ciisa bna maryam, ciisihii ina maryamo ahaa, albayinaati aayada cadcadaan siinay, xujooyin cadcad oo suuratu alcimraan kusoo aroortay iyo suuratu lmaa-ida. ayadahaas cadcadaan siinay oo mucjizooyinka ah. wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay ina maryama biruuxi lqudusi,
ruuxii daahirka ahaa ruuxdii daahirka ahayd waa malaku jibriil ayaan ku xoojinay ayuu ilaahay yihi subxaana wa tacaala afa kulamaa mar kasta oo jaa-akum uu idin yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aysan jeclayn anfusukum nafyaalkiina istakbartum ma kibraysaan fa fariiqan qolo oo ka mid a rususha kadabtum waa beeninaysaan wa fariiqan qeybna taqtuluuna waa dilaysaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu walaqad aatayna waxaan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii ayaan siinay waqafaynaa waxaan qadaad raacinay qafaa qoortaa la yihahdaa ay istakfaana waxaa yani istakfaytuhu ay idaa ji'ta min khalfihi gadaal haddaa ka timaado gadaashiisa haddaa kaga timaado marka waxaan qafaa waa qoorta dambe waxaan qadaad raacinay waxaan jeega raacinay waxaan ka dabageynay alowda waxaan ka dabageynay nabi muuse min bacdi gadaashiisa ay min bacdi muusa birusuli rusul ayaan ka dabageynay rusushaas waa rusushii nabi muuse ka dambeysay wixii la yaqaani waxa la aqoonintaba wa aataynaa waxaan siinay ciisa bna maryama ciisihii ina maryamo ahaa waxaan siinay albayinaati aayada cadcad ayaan siinay aayada cadcad ayaan siinay aayadahaas cadcad meelaha qur-aanka lagu sheegay waa waxa dhintay inuu soo nooleeyo yani wayubriu lakmaha walabrasa wayuxyi lmowta yani qofka baraska qabo bogsiiyo qofka indhala-aanta ku dhashayo bogsiiyo waa aayado cadcad oo tusinaya nabi ciise inuu rasuul ilaahay yahay aayadahaas cadcadaan siinay waxa dhintay inuu soo nooleeyo waxaasoo dhan aan siinay buu ilah subxana wa tacaala wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay nabi ciise biruuxi lqudusi daahirnaanshaha ruuxdii daahirka ahayd ayaa maaragtay min idaafati sifa ila mawsuuf ayaa la yidhaahdaa ruuxdii daahirka ahayd ayaan ku xoojinay waa malaku jibriil ayaa loo jeedaa ruuxdaas oo ilaahay ku xoojiya subxaana wa tacaala afa kulamaa jaa-akum reer bani israiil ilahay la hadla subxaana wa tacaala afa kulamaa mar kasta oo jaa-akum uu idin yimaado rasuulun rasuul idinla yimaado bimaa laa tahwaa waxaysan jeclayn anfusukum nafsiyaalkiina istakbartum ma ka kibraysaan oo fa fariiqan qolo kadabtum waad beeninaysaan oo nebiyaashii ka mid ah sida nabi muuse iyo nabi ciise iyo fariiqan qeybna taqtulun waaba dilaysaan sida zakariya iyo yaxya waa dilaysaan ilahay saasuu leeyahay waxaa naftiina rabin haddii idinla yimaadaan marka lama rabo qofka waxay nafsadaada jecleen o dhan dadka inaad ku disho ilahay saas hawada lama raaco hawa waxaa loo yiri lianna waxay tahwi saaxibuha ila annaar yani qofka hawada iska raaca waxay ku hoobinaysaa naaray ku ridaysaa waxaa jeceshahay haddaa iska daba raacdo waxaa jeceshahay haddaa iska daba raacdo oo aad ka leexato rusushii ilaahay iyo xaqii haddaa ka leexato waxay kugu tuureysaa naaray kugu tuureysaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israiil qulubuna qulubteenna gulfun waa daboolan tahay waa aburantay dheheen oo wax kaloo geli kara ma jiraan bal iska dhaafe ma daboolnee lacanahum ullahu ilaahay baa nacladay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimada sababteeda ayaa ilaahay ku nacladay subxaana wa tacaala fa qaliilan wax yar ma oo yar ayay yu'minu rumaynayaan ilaahay subxaana wa tacaala in yaray rumaynayaan alleh caza wajal waxay yidhahdeen qulubteenna waa daboolan tahay waxay ula jeedaan qulubteenna waa buuxdaa waxaa ka buuxo cilmi ayaa ka buux sheyga markuu buuxsamo waa la daboolaa marka anaga qulubteena waaba buuxdaa oo meel aan ka dhegaysano waxaan uu sheegaya nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam meel waxaan ay ka galaanba ma leh waxaa uu sheegaya isaga ma dhegeysa anaga meel naga gashamaan cilmi oo dhan waa soo koobnay waa buuxnaa waa ognahay marka waxaan u dhegeysanay iyo waxa uu noo sheegaa midna anaga waxba nagu kordhin mayso meel aan ka gelinana maba hayno warkiisa
oo cilmi baan ka buuxinaa saas yiraahdeen. waqaaluu waxay dhaheen reer bani israa'iil quluubuna qalbiyaalkeena qulfun waa daboolan yihiin, waa buuxdaa, cilmigay ka buuxdaa. ilaahay markaa wuxuu yidhi maya, been waa cilmi kama buuxdee, bal iska daa waxaase lacanahum ullah, ilaahay baa nacladay subxaanahu watacaala oo raxmadiisa ka dheereeyey bikufrihim, bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ayaa lagu nacladay. yani kufrinta nabiga ku kufriyeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo yaqaan oo aada u yaqaan oo la rabay inay noqdo saa soo aragnay walaa takunuu awala kaafirin bihi, ilaahay uu ku yiri subxaanahu watacaala idinkoo yaqaan oo ilmihiina ka aqoonis badan saa u taqaana nabi maxamed, haddana ha ku kufrinina. kufrigaas sababtiisa qulubta loo nacladay, qalbiga wax geli maayaan haddii ilaahay naclada subxaanahu watacaala. marka khayrkii iyo wanaaggii iyo xaqii iyo iimaankii ma gelayaan, naclada sababteeday la gelaynin. laakiin ma aha cilmi iyo iimaana ka buuxo, cilmiga ka buuxa sababteed wax uma geli waynayaan. lanna cilmiga maba laga dhargaba, qulubta kama buuxsanto cilmiga oo kama xiranto. cilmiga markuu qofka galaba wuxuu ogaanaya inta cilmigiisa uu leeyahay sida u yaryahay. marka noloshiisu dhan hadduu cilmi raadinayo kama dhargayo, maantoo dhan maaragtay cilmiga hadduu wado. qulubta waa nacladan tahay. qaalu waxay dhaheen quluubana qalbiyaalkeena qulfun waa daboolan tahay, waa buuxdaa. bal lacanahum ullahu, ilaahay baa nacladay subxaana watacaala bikufrihim gaalnimada sababteeda. faqaliilan waxaa yar ma oo sii yar yuminuun ay rumaynayaan. faqaliilan in yar ma oo yar ayay yuminuun rumaynayaan, in yar ayaa laga yaabaa inay rumeeyaan. wax yaraa kasoo islaama yahuudda oo islaamka kasoo gala. walamaa goortii jaaahum uu u yimid kitaabun kitaab min cindi illaahi, ilaahay xaggiisa ka ahaaday, qur-aankia loo jeedaa iyo rasuulkii waday, musadiqun rumaynayo, kitaabkaasoo rumaysan limaa macahum waxa iyaga macooda ah oo towraad iyo injiil ah. wa kaanuu ay ahaayeen min qablu horaan yastaftixuuna kuwa furasho weydiista, kuwa gargaar weydiista, ilaahay gargaar ku weydiisana cala aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ay ahaayeen, horeyna u ahaayeen sidaas. sittiin haasa wujjira dhagaytiiteenaaken kan daawachuu jirtu kun TBN. falamaa goortii jaaahum uu u yimid kitaabkii, hadda kitaabkia lagu jeeda laakiin rasuulkia loo jeeda oo kitaabkii wataa. markuu u yimid falamaa jaaahum, markuu u yimid rasuulka iyo kitaabkiisii markay u yimideen, falamaa jaaahum markuu u yimid maa shaygii carafu ay yaqaaneen, oy horey u yaqaaneen oo aqoonsadeen, kafaruu waa ku kufriyeen bihi isagii. falacnatullaahi, ilaahay lacnadiisa cala alkaafiriina, gaala dushooda ha ahaato. walamaa goortii jaaahum uu u yimid kitaabun kitaab min cindi illaahi, ilaahay agtiisa qur-aankana u yimid. kitaabkii markuu u yimid oo min cindi illaahi, ilaahay agtiisa laga soo dejiyey, musadiqun rumaysan limaa macahum waxa iyaga ay haystaan oo yani kitaabka injiil aan rumaysan, asalkii lagu soo ilaahay usoo dejiyey subxana watacala nabi ciise, iyo towraadna rumaysan. limaa macahum waxa iyaga macooda ah, iyagana ay rumaynayaan, injiilna ay ku taalo qur-aanka iyo nabiga tilmaantiisii, towraadna ay ku taalo nabiga iyo tilmaantiisii ay ku taalo. wa kaanuu ay ahaayeen min qablu horan yastaftixuuna kuwa gargaar weydiista cala aladiina kuwii kafaruu gaaloobay, ilaahay ku gargaar weydiista. istiftaax waxaa loo jeedaa yani in uu ilaahay fatxi ka dalbo. fatxi macnaheed waa kala bax, kala baxana marka waa nasriga. marka nasri ayay ku dalbi jireen, yani cala aladiina kafaruu kuwii gaalooba mushrikiinta ahaa ayay ku dalbi jireen ilaahay inuu ka guuleyn doono, ay ku dalbi jireen. oo waxay dhihi jireen nebi baa soo dhow, nebigaas marka xilligiisii la jooga, markuu soo baxo nebigaasaan raacaynaa, nebigaasaan markaasaan idin laynaynaa, sida caad sida reer caad iyo reer maaragtay reer caad loo laayo kale ay u halaagsameen, oo saasaan idin halaagaynaa annagana, saasay dhihi jireen. marka nebigii ay ku gargaar weydiisan jireen ilaahay subxaana watacaala, markaa
falamaa jaa-ahum markuu u yimid maa carafuu wixii ay yaqaaneen oo ay garanayeen kafaruu ay ku kufriyeen bihi isagii. marka waxay dhaheen markuu u yimid rasuulkii naftiisii u yaqaaneen waxay dhaheen rasuul ilaahi ma aha, waa ku kufriyeen, kafaruu bihi waa ku kufriyeen. marka ilaahay muxuu sameeyey falacnatullaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaafiriin gaala dushooda ha ahaato. bisa maa waxaa baas leh, bisa waxaa baas leh maa shay ishtarow ay iibsadeen bihi isaga anfusahum nafsadoodii ay ku gateen ayaa baas leh. an yakfuruu inay kufriyaan ayaa baas leh bimaa kii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey inay ku kufriyaan bagyan gardarsi darteed, liajli bagyin gardarsi darteed. an yunazila allahu ilaahay inuu soo dejiyo min fadlihi ilaahay deeqdiisa calaa man axad yashaa ugu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah. fabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin caro calaa qadabin caro la dul saaray. walilkaafiriina gaalana waxay leeyihiin cadaabun cadaab muhiinun oo wax ihaaneeya, wax duleeya. nafsadoodii markaa way iibiyeen, waxay ku iibiyeen gaalnimay soo iibsadeen. meeshay nabiga raaci lahayn caleyhi salaatu wassalaam ayay gaaloobeen. marka naftoodii iska gadeen, waxay soo qaateen gaalnimay soo qaateen. marka waxaa baasle waxa ay soo gateen oo gaalnimada ah. bisa waxaa baasle maa shay ishtarow ay iibsadeen, yani ay bisa shay-u shay ayaa baas leh, shay-an shay ishtarow ay iibsadeen bihi isaga anfusahum nafsadoodii ay ku iibiyeen. an yakfuruu inay gaaloobaan oo ku kufriyaan bimaa kii anzala allahu ilaahay soo dejiyey ayaa baas leh, bagyan liajli bagyin gardarsi darteed. nacayb ay nacab yihiin. waxay dhaheen nabiga annaga reer bani israiil filayn inuu kasoo baxo rasuulka, laakiin hadduu carab kasoo baxa yeeli maynay dheheen. see carab looga soo saarayaa nebi looga soo saaraya rasuul? annagaa nebinimada lahaan jirnay, annagana laga soo saari jiray. marka waa gardarsi oo ilaahay maarata ahum yaqsimuuna raxmata rabbik, ilahay saas ahum yaqsimuuna raxmata rabbik. an yunazila allahu ilaahay inuu ku dejiye min fadlihi deeqdiisa fadligiisa oo risaaladii nabinimada ah iyo qur-aankii ah calaa man dushiisa uu kusoo dejiyey yashaau ilaahay uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah. fabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin caro calaa qadabin caro la dur saaray ayay la gadoomeen, oo caro lagu daray ayay la noqdeen. markii hore carada labada caro maxay tahay? caradii hore oo ay ku caabudayeen dibi caabudka ahayd. carada labaadna waxaa la yidhaha gaalnimadii ay ku kufriyeen nabi maxamed caleyh isalaatu wassalaam, ama waxaa la yidhi nabi ciise ay ku kufriyeen, haddana nabi maxamed ay ku kufriyeen. laba cara isugu tagtay. ama nabi maxamed ay ku kufriyeen kadibna waa ku gardarsadeen isaga naftiisa. marka ilaahay saas uli subxaana watacaala fabaa-uu biqadabin calaa qadab. walilkaafiriina gaalo waxay leeyihiin cadaabun cadaab, cadaabkaasoo muhiinun ihaaneeya, wax duleey. cadaabka dii lagu geliy waa ihaana, naar ilaahay naga badbaadiy subxana wa tacaala. naarta qof la geliyey waa maaragtay waa la duleeyey qofka. khizyi iyo dulli ka weyn ma jiro naar qof in la geliyo, dab in lagu geliyo maaragtay ku cuno wax ka yani dulli ka yani walaa tukhzinii yowma yubcathuun. waa kii yiri nabi ibraahim, ilaa ha iduleynin maalinta dadka lasoo saarayo. maaragtay faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljanna faqad faaz. ilahay saas subxana wa tacaala jannada qofkii la geliyo oo naar laga fogay qofkaas waa liibaanay. maaragtay marka ilaahay wuxuu leeyay waa cadaab ihaaneeya ayaa la gelina, cadaabun muhiin, cadaab wax ihaaneeya. allah naga badbaadiyey subxana wa tacaala. waidaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo reer bani israa'iil aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu ilaahay waxa uu soo dejiyey, qaaluu waxay leeyihin nuuminu waxaan rumaynaynaa bimaa unzila waxa lagu dejiyey caleyna dusheeda korkeenna waxa lagu dejiyey ayaan rumaynaynaa. wayakfuruuna way ku kufrinayaan bimaa waraa'ahu wixii kasoo haray wahuwa midkaa ama wixii ka dambeeyey towraad oo ah tii nabi ciise iyo tii nabi maxamed. wahuwa isagoo kaa ka dambeeyey nabi ciisena kaa towraad ka dambe huwa isaga alxaqu uu xaqi yahay, musadiqan rumaynayo limaa macahum waxa ay haystaan. qul waxaad tiraahdaa marka haddii aad rumaysan tihiin waxa aad haysataan
falima taqtuluuna maxaad u leynayseen ambiyaa allah ilaahay nebiyaashiisa min qablu horan maxaa ugu disheen in kuntum hadaatiin mumina kuwa alla rumeeyey waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo reer bani israiil aaminuu rumeeya bimaa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiyey oo nabi llaahi maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo kitaabka lagu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihin nu'minu waxaan rumaynaynaa bimaa unzila kan lagu soo dejiyay calaynaa dusheeda towraadaan rumaysanay annaga injiilna ma rumaysnin qur-aanka furqaanna ma rumaysnin ciise iyo nabi maxamedna ma rumaysnin laakiin kan annana lagu soo dejiyo towraad ah kaas besaan rumaynayna wayakfuruuna waa ku kufrinayaan bimaa waraahu waxa ka dambeeyey towraad oo nabi muuse ka dambeeyna waa ku kufrinayaan wahuwa kaasoo alxaqu xaqi ah kan ka dambeeyna ee towraad waa xaqi waana injiil iyo qur-aankii musadiqan haddana rumaynaya limaa macahum waxa iyaga ay haystaan rumaysan oo injiil waa rumaysan tahay towraad waxay leeyihin lakiin nabi maxamed ma rumaysnin qolada reer bani israiil kiristaanka qolada nabi maxamed laakiin wuu rumaysan yahay kulun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadi min rusuli wa qaaluu samicnaa wa atacna ma kala saarayna yihahda saasay yidhaahdeen wahuwa alxaqu asagoo xaqi ah musadiqan rumaysan limaa macahum waxa iyaga macooda ah qul waxaad tidhahdaa nabi allow falima taqtuluuna maxaad u dilaysaan maxaad u dili jirteen ambiyaa allah ilaahay nebiyaashiisa min qablu horaan in kuntum dati mumin kuwa la rumeeyey nebiyaashii maxaad u layn jirteen kitaabkiina da raacaysaan towraad ah maxaad ambiyadii ilaahay u layseen waxay ahaayeen nebiyaasha kuwa laaya nebigay dili jireen nebi zakariya waa dilay yaxya waa dileen oo wiilkiisii ah ambiye badanay dileen iyo rusul badan ayay layn jireen haddaad kitaabkiina ku camalfalaysaan maxaad nebiyaasha u dili jirteen iyo rususha ilaahay hadii musiiba se maarata u sheeganaysa inaad kitaabkiina raacsantihiin kitaabkoodii oo nabi maxamed u sheegayana way diidan yihiin oo ma raacayaan nebiga kitaabka wuxuu nebiga raaca wuu ku bishaareynaya raaca laleeyahy marka kitaabka dad ku camalfalaysaan ku camalfalkiisa waxaa ka mid a inaad nebi maxamed raacdaan horey maxaad ugu diri jirteen nebiyaashii marka haddii aad kitaabkiina raacsantihiin ama rumaysantihiin kan ladiin soo dejiye in kuntum hadaatii mumina kuwa la rumeey walaqad xaqiiqe jaa-akum wuxuu idinla yimid muusa nabi muuse bilbayinaati aayado cadcad iyo mucjizaad buu idinla yimid walaqad aatinaa muusa 9 aayaatin bayinaat ilah yiri subxana watacaala nabi muuse waxaa la siiyey 9 mucjizo waxaa kamid a ushii waxaa kamid a gacantii waxaa kamid a badil dhambalay waxaa kamid a dhagaxi biyahaas uu ku dhuftay oo 12 ilood kasoo baxday aayaad fara badana ilaahay adafaadica wadam dhiiggii carahii yani saas oo kale aayadaha fara badan la siiyey nabi muuse calayh salaam walaqad jaa-akum haddaad tihiin reer bani israiil wuxuu idinla yimid muusa nabi muuse bilbayinaati aayada cadcad idinla yimid uma markaa kadib ittakhadtum waxaad samaysateen ka dhigateen alcijla dibigii min bacdihi aayadaha kadib muuse kadibaad waxaad kala dhigateen ilaahaad ka dhigateen dibigii aad caabudeen dibigii ayaad caabudeen wa antum idinkoo dhaalimuuna dhaalimiin ah walaqad xaqiiqa jaa-akum wuxuu idinla yimid muusa nabi muuse bilbayinaati aayada cadcad mucjisooyin cadin uma markaa kadib ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigii min bacdihi muuse gadaashiisa ilaahan ilaah baad ka dhigateen wa antum idinkoo dhaalimuuna dhaalimiin ah idinkoo dhaalimiin ah waxaa lala hadlaa reer bani israiil ilaahay wuxuu la hadlaa subxana watacaala lama kala reeba kuwa hadda jooga iyo kuwii hore iyo kuwii waa isku qabanaya lanna waxa caruurtii waxa waye aabayaashii waxaa samayn jireen dadka asal waxay samayn jireen aabayaashoodunbay weli samaynaya wadkuruu xasuusa id goor akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiinii adkaa wa rafacnaa aan kor u qaadnay fowqakum dushiina atuura jabalkii tuur aan idin dul dhignay wa qulnaa aan idin iri khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimid biquwatin xoog ku qaata wasmacuu dhegaysta simaaca qabuulin dhegaysi aqbalitaan qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waa maqalnay oo dhagaheena way maqlnay waxaa sheegtay wa casayna waana diidnay wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim qalbiyaalkooda waxaa la cabsiiyey alcijla ay xuba cibaadati alcijli dibiga caabudidiisa jacaylkiisa ayaa la dhansiiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda qul waxaa tahay nabi allo bisama waxaa baas leh
bi'sa waxaa baas leh maa shay ya'murukum uu idin amrayo bihi isaga iimaanukum iimaankiina uu idin amrayo in kuntum haddaaba tihiin mu'mina kuwa alla rumeeyey kuwa alla rumeey haddaaba tihiin yani iimaankiina baas leh. waid akhadnaa markaan qaadnay wadkuruu xasuusa id goor akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiinii adkaa warafacnaa aan kor yeelnay fowqakum dushiina aduura jabalkii duur waa soo marnay buurtii baa la qaaday markaasa qaata waqulnaa khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimid towraad qaata idin idhi kitaabkii ilahay idin yimid subxaana watacaala biquwatin xoog ku qaata bijiddin dadaal ku qaata wasmacuu maqla waxa uu idin leeyahay kitaabka dhegeysta maqlid ajiibid la socoto ay simaaca qabuulin wasmacuu maqla dhegeysta simaaca qabuulin qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waa maqalnay yani maqalkii caadiga ahay waa maqal ajiibid ama aha wa casayna waana diidnay waa maqalnay kitaabka waxa uu sheegayo mana yeelin waa maqalnay mana yeelin wa casayna wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim qalbiyaalkooda alcijla dibiga xuba cibaadat alcijli dibiga caabudidiisa jacaylkeeda ayaa la dhansiiyey oo la cabsiiyey hadal cibaaro cajiib ah yani dibi jacaylkia waxaa laga dhigay sida markaa caanaha la cabo oo caanaha uu cabo qofka jirkiisoo dhan u galaa ilaa xididadiisa jirkiisoo dhan bay galayaan saasoo kale yani jacaylkii dibiga caabudidiisii ayaa la gelsiiyey oo maaragtay dibiga dahab uu ka samaysan la dahabay ka samaysan walidaalika yahuudda dahabkay ka shaqeeyaan dahabkay way jecel yihiin waa jacaylkii dibiga ay caabudeen oo ka samaysnaa dahabka bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ayaa loo dhansiiyey shayga markaa yani uu cabo qofka aadka u gala aada u rumeeyo waxaa la waa cabsan yahay bikufrihim gaalnimadooda sabab qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa waxaa baas leh bi'sa waxaa baas leh maa shay ya'murukum uu idin amrayo bihi isaga iimaanukum iimaankiina ayaa baas leh in kuntum haddaadba tihiin mu'mina kuwa alla rumeeyey ilaa iimaanka idin amrayo inaad maaragtay tidhaahdaan ilahay hadalkiisii waa maqalnay mana yeelin debigii aad caabudaan yani waxaasoo aan la timaadaan haddana mu'miniinaan nahay iimaankiina baas leh iimaanka waxaa idin amrayo ayaa baas leh saas ilaahay subxaana watacala haddaad ba tihiin mu'miniin waa mu'miniin ma tihiin macne qul waxaad tidhaahdaa nabi allow waxay dhihi jireen annagaa daarta aakhira annagaa iska leh waxaan nahay naxnu abnaaullahi wa axibaa'uh ayaana dadka ilaahay jecel yahaan nahay waxaan nahay ilmihii ilaahay baan nahay shacbullahi almukhtaaraan nahay hal aayada ilaahay u keenay waxaa la qul waxaa ku tahay nabi maxamedow in kaanat hadday idiin ahaatay lakum adinka addaaru laakhiratu daartii dambeysay oo aakhare ahayd haddii adinku aada leedihiin cinda allahi alla agtiisa khaalisatan ay saafi idiin tahay adinka keligiin aada leedihiin min duuni nnaasi alla sokadiisa fatamanow tamaniya almowta dhimashada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo dhimashada tamaniya walan yatamanawhu dhadhamin maayaan tamanin maayaan mowtka walan yatamanawhu mowtka ma tamaninayaan ma weydiisanayn ilaahay subxaana watacala ilaahuna dil ma dhahayaan abadan weligood bimaa qadamad waxay hormarsatay sababteeda aydihim gacmahooda wallahu ilaahna caliimu waa ilaah u cilmi badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah weligood dhimasho ma tamaninayaan waxaa la yidhaha hadii ilahay agtiisa khaalis idiin tahay jannadii adduunkan iyo rafaadkiisa iyo dhibkiisa maxaa ka rabtaan ilaahuna oofso bes dhaha waxaad tiraahdaan ilaahuna oofso waan lidin oofsana waa lidin dilaya laakiin ma yeelayaan weligoodna ma tamaninayaan inay dhintaan dhimasho waxay ka necab yihiin ma laha ilahi saas ule subxaana watacaala walan yatamanawhu mowtkii tamanin maayaan abadan weligood bimaa qadamadkii ay hormarsatay sababtiisa aydihim gacmahooda wallahu ilaahna caliimun waa ilaah u cilmi badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah wallahu subxaana watacaala aclam أستغفر الله أستغفر الله